howlgalkii haraadiga al-shabaab ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo qorshaysan waxay ka wadeen deegaano ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Howlgalladan ayaa ujeedkoodu ahaa burburinta fariisimaha argagixisada iyo bacsiga haraadigooda, waxaana ay ka dhaceen deegaanada kala ah deegaanka Fiidow, duleedka degmada Jalalaqsi, deegaanka Qoryaale, deegaanka Ceel Baraf, deegaanka Miirtaqwo, deegaanka Califool Dheere iyo Qurac Madoobe, Mansuur iyo Caday Dheere, halkaasoo argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen fariisimo ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ah. Taliye ku-xigeenka guutada 16aad ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure oo howlgalka hogaaminayay ayaa intii howlgalku socday waxa uu sheegay in lagu dilay dhagarqabayaal gaadhaya 40 oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad, waxaana laga soo furtay hub iyo saanad ciidan oo ay ku jiraan 2 qori oo nooca AK47 ah iyo qori nooca shamshooterka ah iyo agab kale oo ciidan, iyadoona halkaas lagu gubay gaadiid ay argagixisadu isticmaali jireen. waxaa kale oo taliyuhu sheegay in howlgalka la isugu furayay wadada dheer ee xidhiidhisa degmooyinka Mahadaay iyo Jalalaqsi oo ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. kooxda argagixisada ee al-shabaab ayay howlgalkani ku yahay dhabarjab weyn maadaama ay deegaanadan ku lahaayeen goobo ay gabaad ka dhigtaan. waxaa xusid mudan in ciidanku intii ay howlgalka ku jireen ee aanu la soconnay ay indhahayagu qabanayeen shacab fara badan oo ay dhibaato ka soo gaadhay abaarta daran ee ka jirta dalkeenna, iyagoona ciidanku ay siiyeen wixii ay awoodeen, balse argagixisadu inay wax siiyaan iska daaye waxay ugu hanjabayeen ha qaadanina waxa la idin siinayo, taasoo caddayn u ah inay al-shabaab ku duulaan yihiin nafaha shacabka dhibaataysan. ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ah awoodda sida tooska uga hortagta dhagaraha ay cadowga u maleegayaan shacabka.